Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Ladies and gentlemen, are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay practice about wada sheekaysi ku saabsan learning English, barashada Ingiriisiga. Practice about learning English, wada sheekaysi ku saabsan barashada luqadda Ingiriiska. Hello, ahlan, salam, friend, saaxiib, what's up? Maxaa cusub? Hello friend, ahlan saaxiibow, what's up? Maxaa cusub? I am great, waa wanaagsanahay. And you, adiguna, I am well, waan fiicanahay. I have a big problem, my friend. Dhibaato weyn bay haysataa saaxiib. Oh, what is your problem? Dhibaatadaadu waa maxay? Tell me ii sheeg. I wanna try, waxaan isku dayayaa to help you inaan ku caawiyo. Okay, thanks. Haye mahadsanin. I have been learning English. Ingiriisida waxaan baranayay for a long time, waqti dheer, and still welina I can't speak it very well. Si fiican uguma hadli karo, but laakiinse I understand a little bit. In yar ayaa fahmi karaa. So sidaa daraaddeed, what can I do? Maxaan sameeyaa? I have an idea. Fikrad baan ku hayaa. Which can help you. Taasoo ku caawinaysa adiga. If you follow it, haddii aad raacdo. Do you come to school every day? School day. Maalin walba oo dugsiga la leeyahay ama la dhiganayo miyaa timaadaa? No, sometimes I come. Maya, marmarka qaar waan imaadaa. And sometimes I miss it. Marmarka qaarna waan jaraa ama waan gooyaa. Wal hagaage, do you come to class? Fasalka miyaa timaadaa? On time, waqtiga saxda ah, or late, mise waad daahdaa? I come late, waan daahaa. Do you take part? Miyaad ka qayb qaadataa? The class activity, waxqabadka ama hawsha fasalka gudihiisa. Sometimes, marmarka qaar. Not always, maaha badanka. Okay, hagaag, listen to this advice. Waanadan u dhegayso, taladan u dhegayso. Carefully, si degan oo taxadar leh. Firstly, ugu horeyn, come to school, dugsiga kaalay. Every school day, maalin walba dugsiga la dhiganayo. Secondly, mar labaad, come class, fasalka kaalay. On time, waqtiga saxda. Third, marka saddexaad, read your lessons, casharadaada akhri, and share students, ardaydana wadaaga, class activity, hawsha fasalka. If you do or take this advice, haddii aad samayso amaad qaadato taladan, waanadan, I am sure waxaan hubaa you will learn inaad baran doonto how to speak, sida loogu hadlo, write, loo qoro, and understand English, loona fahmo luqadda Ingiriiska. Wal hagaage, thank you very much my friend. Aad baad umahadsan tahay saaxiibow. I will follow, waan raaci doonaa, and take your advice, taladaadana waan qaadanayaa. You are welcome, adiga mudan. New words, ereyada cusub aan ka soo ururnay practice-keena. Great, wanaagsan. Big problem, dhibaato weyn. Try, isku dayid. Still, weli. Little bit, in yar. Flow, raacid. Miss, laba micnuu qaataa. Mar waa xiiso, marna waa goyn ama jarid fasalka oo kale. On time, waqtiga saxda. Activity, waxqabad. Advice, waano, talo. Share, wadaagid. Understand, faham.